degdeg naxdin waxaa haatan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland lagu xidhay gabadhii tiktokarada caanka ka ahayd ee lagu magacaabi jiray Sumaya Qurux. Jirdil ba'an iyo sidoo kale waxaa loo geystay dil iyo weliba xabsi. Haddaba arrintaasi maxaad kala socotaa daawade? Warbixin xasaasiya iyo muuqaal arrintan ku saabsan ayaan daawadayaal idinla wadaagi doonaa. Balse intaan u gudagelin muuqaalka fadlan like share oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade. Kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Ducaysana Media. Warar degdega oo haatan inaan soo gaaray ayaa daawadayaal waxay xaqiijinayaan in magaalada Hargeysa lagu xiray gabadhii caanka TikTok ka ahayd ee lagu magacaabi jiray Sumaya Qurux. Wararka haatan inaan soo gaaraya waxa ay sheegayaan in loo geystay jirdil aad u ba'an isla mar ahaantaana loogu daray weliba xabsi. Dhowaan ayayna ahayd markii halkaasi laga soo celiyey eelaboorka dhexdiisa gabadhii tiktokarada caanka ka ahayd ee lagu magacaabi jiray iyana Mrs. Wall. Arrintan ayaana loo aaneynayaa in Sumaya Qurux iyo weliba gabadha lagu magacaabo Mrs. Wall isla waqti ay ka degeen garoonka magaalada Hargeysa, iyadoona sidoo kale Sumaya Qurux ay u gudubtay isla magaalada dhexdeeda, balse Mrs. Wall la soo celiyey kadib ogaansho la ogaaday in halkaasi ay ku sugan tahay Sumaya Qurux. Ayaa warar haatan si toos ah loo xaqiijina daawadayaal oo ina soo gaaray waxay sheegayaan in jirdil aad u ba'an booliska Somaliland ay kula kaceen gabadha lagu magacaabo Sumaya Qurux, halkaasina ay haatan ku jirto xabsi. Jirdil ba'anna uu ka muuqanayo. Qaar ka mid ah wariyaasha ugu caansan khaasatan Cali Aadan Muumin ayaa haatan warkaasi degdega ah isla ku soo qoray beedkiisa, iyadoona sidoo kale dadyow kale ay soo qorayaan. Ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. Wixii nagu soo kordha daawade waan idinla soo socodsiin doonaa, balse muuqaalka like garee oo la wadaag saaxiibadaada. Ku mahadsanid daawade.